xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Shariif oo gaartay meeshii ugu xumeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku soo biiray madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shir la filayo inuu ka dhaco magaalada New York taliska booliiska Soomaaliyeed waxay sheegeen inay isbedel weyn ku sameyn doonaan hanaankay u sugan amniga magaalada Muqdisho warar kala duwan waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay bartamaha magaalada Jigjiga madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamul goboleedka Puntland golaha isbedel doonka ah Jubbaland eedeymo xoogan waxay u jeediyeen madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ahayd ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa saaka howlgal ka wada deegaano hoos yimaada deegaanka lagu magacaabo Buufo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah wadamada reer Yurub oo sheegay in Iiraan ay ka dambeysay duqeymihii lala beegsaday kaalimo shidaal oo ku yaala bariga dalka Sacuudi Carabiya mar kale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaado ah taariikhduna ay ku astaysan tahay 24 bisha sagaalaad sanada 2019 inta aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee raadiyaha Simba iminkana warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shir la filayo inuu ka furmo magaalada New York ee xarunta ganacsiga Mareykanka warkan waxa faahfaahinaya Cabdicasiis Beereed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirar kala duwan la yeeshay madaxweynayaasha jamhuuriyadda Estonia Marwa Kersti Kaljulayd iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Ireland Mudane Leo Varadkar iyagoo ka wada hadlay yagleelidda iskaashi ku dhisan dan wadaag iyo wax wada qabsi jamhuuriyadda Estonia waxay ku guuleysatay inay sanadka cusub ku biirto xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo ay Soomaaliya ugu baahan tahay taageero diblomaasiyadeed iyo mid horumarineed halka jamhuuriyadda Ireland ay tahay xubin firfircoon oo ka tirsan midowga Yurub oo si xoog leh uga qayb qaata amniga iyo dib u dhiska Soomaaliya madaxweynaha oo sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika Mudane Akinwum Adesina ayaa la wadaagay dadaalada ay Soomaaliya ugu jirto barnaamijka deyn cafinta iyo kaalinta uu bangiga horumarinta Afrika ka qaadan karo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa la filayaa inuu ka furmo shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulankiisii 74aad oo sanadkiiba mar la qabto isla markaana waxaa ka qayb galaya inta badan hogaamiyaasha wadamada caalamka waxaana martigelinaya shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanad walibana lagu qabtaa dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York ee dalkaasi taliska booliiska Soomaaliyeed waxay sheegeen inay isbedel weyn ku sameyn doonaan ammaanka guud ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay hanaankay u sugi doonaan amniga magaalada Muqdisho taliyaha ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo kordhin doonaan kontaroolo cusub iyo barag kale oo laga hubiyo gawaarida soo galaysa magaalada Muqdisho iyo kuwa ka baxaya waxa uu xusay in dhawaan la howlgelin doono inta badan saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed isla markaana isgoys walba la geyn doono ciidamo iyo taliyahooda si ay halkaasi ammaanka u xaqiijiyaan waxaan rabnaa oo idin soo gaari doona qaabka amniga loo sugo ee magaalada Muqdisho inaanu wax ka bedelaanu rabnaa inaanu caqli ku soo kordhinaanu rabnaa inaanu dadka xiriiriga ka qaadnaanu rabnaa inaanu rabnaa dadka iyo booliiska oo isku duuban baana taa lagaga bixi karaa in dadku dareemo culayska sidii isaga qaadi lahaayeen iyagoo kaashanaya booliiskooda annagana waxaa naga go-an inaanu u sameyno qaab cusub oo aanu dhowaan soo saari doono oo aanu isleenahay amniga qaabka hadda loo ilaaliyo amniga qaab ka fiican ayaa imaanaya amniguna meeshuu hadda jooga ama waa ka sii fiicnaan doonaa insha allahu tacaala marka waxaa la doonayaa inaad u diyaar garowdaan saraakiishiinan iyo degmooyinka iyo qaybaha in qaabkii hore aada wuxu ilaalin jirteen muxuu ahaa xuduudda u ahayd xamar
jeegboyntiyadii inaanu durkinayno, jeegboyntiyo cusub abuurayno, inaad u diyaargarowdaan ka qayb qaadashadooda. qorshahaasi waa qorsho socda, waana qorshe aanu rabno dhowaan inuu muxuu ahaa hirgalo, ay ka qayb qaataan taladiisa degmooyinkii taliyayaasha qeybaha iyo guddoomiyaasha degmooyinku iyagaa u dhuundaloola. marka barnaamijka aanu ku xasilinayno magaaladan. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayuu kaasi ahaa oo sheegayay in Muqdisho ay ku soo kordhin doonaan bara control iyo sidoo kale ciidamo hor leh si loo adkeeyo amniga guud ee magaalada Muqdisho. markana Kismaayo, golaha isbedel doonka ah ee Jubbaland ayaa eedeymo xoogan waxay u jeediyeen madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdi Fataax Muumin. golaha isbedel doonka ee maamulka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka hadleen xayraadii iyo waliba sidoo kale safarkii uu madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland. Cabdirashiid Xidig oo ah madaxweynaha garabka golaha isbedel doonka ee maamulka Jubbaland oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed asigoona ku eedeeyay in uu doonayo shakhsi kaligiisa isa soo doortay in uu u caleemo saaro, taasina ay tahay sharci daro. waxaana sidoo kale uu tilmaamay in bulshada ku nool magaalada Kismaayo ay u baahan yihiin qof ayaga ay soo doorteen balse aysan u baahnayn qof asiga is doortay sidoo hadal ku dhigay. usoo kala tartamaya Kismaayo Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadalkaaga waxaa ku jirta 4 sano doorasho dhacda, waa kugu waafaqsana. inta hadal ee aad tiri 90% waa kugu waafaqsana, laakiin intii aad ku xadgudbaysaa adaa ku xadgudbaya intaba. 4 sano waa in doorasho dhacda, waa sax, doorasho kama dhicin Jubbaland. madaxweynaha ahayd waad wareejisay, maxaad ku wareejisay? doorasho dhacday, doorasho ma dhicin. waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhan ba halka ka jira. waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso, waxaad rabtaa inaad boob iyo khiyaamo xalaalayso, mana xalaalayn kartid. haddaad halka hadda timaado lagu fasixi lahaana oo intaad timaado aad caleemo saari lahayd saaxiibkaagii horena waxba uma soo kordhinaysid, waxna uma kordhinaysid. in lagu celiyaaba magac iyo sharaf laga yaaba inay ku tahay. waan ku ixtiraamaynaa shacabka Jubbaland, uma baahna benziin inaad ku soo shubto. haddaad imanayso sidaasi ka qurux badan inaad u timaadee dameero wado warkaa waa kaa soo horreeyey, warqadaadaa kaa soo horreysay aad ku taageertay Axmed Madoobe. hadda maxaad sheegi? intii unbaad ku celin sooma. madaxweynaad rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka ah. madaxweynihii hore Xasan Sheekh ka mid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxaan ku idhaahdaa baddii iyo dhulkii iyo cirkiiba hore u gatay. waxaad rabtaan oo Soomaaliya rabaa inaan u sheego, madaxweynayaal bay rabaan 20 inay u tartamaan, waana qeyr mas'uuliyad bay hadda ku shaqeynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax. ayaguna taasoo kale rabaan inay nagu sameeyaan. waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas, Kismaayo waad iman kartaan, waa magaalo Soomaaliyeed, laakiin sida aad ku imaanaysaan si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan. haddaad odayaal tihiin idinkoo odayaal inaad timaadaan baa laydinka rabaa. haddaad maxaan ku idhaahdaa si kale oo qaraabo salaan u imaanaysaan inaad u timaadaan, laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan. farmaajo doorasho idinkaga adkaaday, intuu idin la tartamo doorasho idinkaga adkaaday, mana idinka baryay 4 sano inuu xukumo meesha. waana dhammaatayba suga hala waalanaysa shacabka hala kiciyo, carruurta hala kicina. waa waxa aad ku hadlaysaan baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe oo qabiil daaraya. waxaa sida Soomaaliya kama shaqeeyaan, shacabkana ma marna habaabin kartaan. waxaa idin soo jeedinaynaa haddaad timaadaanna waxba soo kordhinaysaan, benziin ubaa kusoo shubaysaan. hadalka xildhibaan Cabdirashiid Xidig isla markaana ah madaxweynaha golaha isbedel doonka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli 48 saac la soo dhaafay muran aad u xoogan uu ka taagnaa caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee garabka markaasi uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyadoona mas'uuliyiin kala duwan ee doonaysay inay ka qayb gasho ugu horeeyo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed laga celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
taasina ay dhalisay carab fara badan oo ay ka caroodaan mas-uuliyiin kala duwan halka qaarka kalena ay soo dhaweeyeen tegistii uu ku tegi lahaa magaalada Kismaayo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore. markan haddaan eegno warar kala duwan waxaan ka helaynaa shil gaari oo sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay bartamaha magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. shilkan ayaa waxaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari Soomaalidu nooca u taqaan candambeelaha iyo sidoo kale gaari mooto bajaaj waxaana la sheegay in laba qof oo saarnaa mooto bajaaj gabi ahaan bay halkaasi ku geeriyoodeen. qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa nawaaxiga meesha uu shilku ka dhacay ayaa waxay ka warbixinayaan sida wax u dhaceen. laba qof baan horta caadi u arkayay waxa kalena dhaawac bay ahaayeen marka waa sida walaal weeyaan gaadhigu laakiin xawli buu socday xoog buu socday gaadhigu bajaajta markuu taabatay gaadhigu uu qaban kari waayay wiilku laakiin wiilasha haddii gaadhiga hore looga qaadi lahaa naf waa lagu gaadhi lahaa inkastay dee saacadoodii ay waqtigoogii ay dhammaatay laakiin waa sidaa weeyaan kor buu ka imaaday xagga kaarmar xaggeed kadib baajaaj baa hor socotay baajaajtaa marka laabtay gaarigana xawaarad ku socday xawaaro badan buu ku socday gaariga markaad baajaajku ku dhacday baajaajku u rogmaday midig buu u qabtay wuxuu dhintay gaari baajaajku goo rogantay ka wiciyo badax midig uu soo goy steering markaad midig u soo goy xawaaro xoog leeyahay ku socday xawaaro badan ku socday midig markaad u soo goy halkaan la soo fuulay halkaan uu ku rogmaday kullay dhimasho dhaawac buu jirtaa ani waxaan arkay laba ruux oo dhimasho iyo saddex dhaawac oo mid darawalka yahay intaas bay ahayd gaariga sidaan hadda aad u jeef aad u yaal uma yeelina dee taayirada afar taayir kor bay u jeedeen markii dad kadib shacabka meesha iskugu imaada soo rogo saan u soo rogay laakiin marka hore afarta taayir kor bay u jeedeen baabuurku ku dhaawacmay alxamdulilah walaahi hadda waan fiicanahay lugta hoose iyo dhawarka ayay wax saaidiga soo gaareen run ahaantii anina marka dhibka markuu ugu dhacay waddada agteeda ayaan taagnaa waxaan lahaa bajaaj aad hore usii raacday magaalada inaan halkaa jiifay istaagnaa unbaa ugu dambaysoon jugtun baan kabar heloon marka alxamdulilah. qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay shil ka dhacay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka ayay kuwaasi ahaayeen. markana Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka. Cabdifataax Muumin ayaa faahfaahinaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo wareegto ka soo baxday xafiiskiisa ayaa waxaa loogu magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka maamulka Puntland. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne lamarkiisu ahaa 93 Sebtembar 2019 ku magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland markuu arkay ayaa loo yiri wareegtada ka soo baxday dastuurka dowlad goboleedka Puntland markuu arkay aqoonsigiisa iyo waliba khibradiisa shaqo wuxuu xeeriyay waxaa Mukhtaar Maxamed Xasan loo magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka maamulka Puntland. xeerkani ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu dhaqangeli doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya saaka howlgalla waxay ka wadaan deegaano hoos yimaada deegaanka lagu magacaabo Buufo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. deegaankan shalay waxaa ku dagaalamay waa deegaanka Buufo ee ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyo kuwa milatariga Soomaaliya ka gadaal markii dagaalyahano ka tirsan shabaabku ay dhabaha u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya oo howlgalla ka waday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. dagaal qaatay ku dhawaad hal saac ayaa waxa uu dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada milatariga lamana oga khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray waana tan keentay in ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya oo ka anbabaxay xalay saqdi dhexe marka ay gaaraan deegaanka Buufo isla markaana howlgalla ay ka wadaan deegaano hoos yimaada deegaankaasi. shabaabkii weerarka soo qaaday ayaana loo sheegay inay gabi ahaanba halkaasi iskaga baxeen.